madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa qaaday talaabo si kala fogeynaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland xilli xiisada u dhaxaysa Puntland iyo dowladda dhexe uusan wanaagsaneyn kaasi oo khilaafkooda ka dhashay hanaanka doorashada qof iyo cod ee lagu wado inay dalka ka dhacdo taasi oo laga soo saaray shirki golaha wada tashiga qaran madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo aan soo xaadirin shirka golaha wada tashiga qaran ayaa ka soo horjeestay qodobadii ka soo baxay maantana khudbad uu ka jeedinaya magaalada Garowe ee xarunta gobolka Sool ayuu waxa uu kaga dhawaaqay arin xasaasi ah oo si kala fogeynaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta khudbada xasaasi ah uu ka jeediyay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal waxa uu ku dhawaaqay go'aan culus oo si kala fogeyn kara maamulkaasi iyo dowladda dhexe xilli haatan uu ka taagan yahay xiisada kala dhaxaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa shaaca ka qaaday in Puntland ay bilowday qorshe gaar ah oo ay ku sameynayso lacag taasi uu tilmaamay in ay la jaan qaadi doonto nidaamka maaliyadda ee Soomaaliya madaxweynaha Puntland ayaa xusay inay u dhaqmi doonaan sida wadamada kale ee leh nidaamka federaalka oo uu tilmaamay in qaarkood ay leeyihiin lacag u gooni ah dowladda Puntland waxay bilowday daraasada saameynta lacag u gaar ah ee Puntland sida wadamada federaalka adduunka qaar ka mid ah ay leeyihiin lacagahaasi oo mustaqbalka la jaan qaadi doona nidaamka maaliyadda Soomaaliya marka miirka iyo sidoo kale maslaxadu soo noqoto ayuu yiri madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu sidoo kale ku eedeeyay dowladda dhexe inay ka gaabisay sameynta lacag cusub balse ay hadda Puntland ay go'aansatay inay sameysato lacag u gooni ah hadii aan la helin lacag cusub oo dalka uu yeesho Puntland ayaa horey u qaadatay go'aano ka dhan ah dowladda federaalka Soomaaliya waxaana ugu dambeysay in dhawaan ay ku dhawaaqday in xiriirka ay u jirtay dowladda dhexe ayna u dhaqmayso sida hadal madax banaan kadib khilaafkii madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud khilaafka ayaa wali halkiisii ka sii huraya waxaana Puntland ay qaaday talaabo si hurinaysa xiisada Puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxaan rabaa inaan halka uga faro iyagoo raacaya nidaamyada adduunka dalal badan oo federaal oo waxa jira laba lacagood kala leh macnaheedu ma aha Soomaalinimada inaan ka baxnay laakiin waxaan rabaa Puntland lacag ay leedahay inaad daraasadeeda bilowdaan oo raadisaan muddaan sugaynay in dowladda mid ah shilin Soomaaliya midaysan la sameeyo ma muuqdo marka maanta go'aankaas ayaa dowladdu waayadan ka shaqeynaysay daraasadeeda socota waxaan rajaynaynaa muddo gaaban oo inta 2025 lagu jiro hadii Ilaahaydan ka dhigo in la helo lacag Puntland ay leedahay oo hadhow la jaan qaadi doonta nidaamka maaliyadeed ee Soomaaliya markii miirka iyo maskaxdu soo noqoto oo dad Soomaaliyeed oo is ogol oo nidaam waaxid yeeshaan marka arintaas waxaan rabaa in hoosta laga xariiqo shaqadii ay wadeen la dedejiyo waxaan kaloo halka rabaa inaan baaq uga diro cid kasta oo ururadaas xaq jirka ku jirtay oo diyaar u ah inay ka tanaasusho hawshii ay ku jirtay waxay dowladda Puntland u fidinaysaa in ay nabadgelyadoodana ka shaqeyso bulshadana dib ugu dirto wixii Soomaaliyana ay dadkooda ku celiso wixii ajnabina dalalkooda haday u baahdaan la geyn doono ma rabno dhiig bini aadan laakiin cidii ku madax adeegta waxaan farayaa ciidamada dawladdu inay waajibkooda ka gutaan cidii diyaar u ah in ay bulshadooda soo dhex gashana waxay dawladdu dejisay siyaasad lagu maamulayo dadka raba dambiyadaas inay ka soo noqdaan duruufo kasta ku kalifaan waxaan kaloo u sheegayaa dadka magaalooyinka jooga oo nimanka gacan saar kala leh oo la shaqeeya kana shaqeysta dawladdu way ogtahay talaabada xilliga ku haboon baa la qaaday idinku naftirkiina kuwa cafiska ku jirtaan inta goorgoortahay dadkiina ku soo biira hadaad ka dhaga adeegtaan hadhowtiyaan la iseersan hadaad ka dhaga adeegtaan hadhowyaan la iseersan maanta cafis baa furan birri isla xisaabtan baa furnaan doona
haddii uu cafiska ku soo galana nidaamka iyo siyaasadda cafiska uu raaci doonaa haddii isagoo ama dagaalamaya ama la shaqaynaya la qabtana nidaamka maxkamadaha ayuu wuxuu mari doonaa xeerarka ciqaabta ee uu mutaysan doono marka khiyaaraadkaasna isagaa kale leh dadka magaalada Boosaaso waxaan rabaa kaalinta ugu weyn inay qaataan jidadka la furo ammaanka laga shaqeeyo isdhexgalka la xoojiyo dadku ay nabadooda iyo degenaanshahooda ka shaqeeyaan walaalnimadooda ka shaqeeyaan waxaa xukuumaddu ku shaqayn doontaa magaalada Boosaaso inta laga xaqiijinayo amniga buuraha iyo magaalada isbeddelkeeda iyo horumarkeeda laga shaqeeyo haddii ilaahay aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ciidanka Puntland wuxuu galay diyaar garow kii ugu fiicnaa abid uu soo maro waxaan ku kalsoonahay qorshayaasha hadda socday iyo diyaar garowga socday in war farxad leh annagoo ilaahay kaashanayna aan maqli doono dhowaan waxaan u baahanahay halka rabaa fariin in aan wadiro dadka reer Puntland meel kasta ay joogaan inay ka qayb qaataan dhiirigelinta iyo taageeridda ciidamada howlgalkaas culus galaya oo aan rajaynayo insha Allah inay waajibaadkooda gudan doonaan maanta ayaa ugu horeysa in aan niraahno dadku waa inay ka qayb qaataan maxaa yeelay ilaa diyaar garowgu dhammaado ma aan rabin inaan ka hor dhacno oo ka warramo waxaa maanta diyaar ah ciidan ku filan waajibaadkaas oo ay u dhammaystiran yihiin wax walba oo howlgalkooda ay ku qaban lahaayeen waxaan kaloo halka rabaa inaan baaq uga diro cid kasta oo ururadaas xag jirka ku jirtay oo diyaar u ah inay ka tanaasusho hawshii ay ku jirtay waxay dawladda Puntland u fidinaysaa in ay nabadgelyadoodana ka shaqeyso bulshadana dib ugu dirto wixii Soomaaliyana ay dadkooda ku celiso wixii ajnabina dalalkooda haddii u baahdaan la geyn doono ma rabno dhiig bini aadan laakiin ciddii ku madax adeegta waxaan farayaa ciidamada dawladdu inay waajibkooda ka gutaan ciddii diyaar u ah in ay bulshadooda soo dhex gashana waxay dawladdu dejisay siyaasad lagu maamulayo dadka raba dambiyadaas inay ka soo noqdaan duruufo kasta ku kalifaan waxaan kaloo u sheegayaa dadka magaalooyinka jooga oo nimanka gacansaar kala leh oo la shaqeeya kana shaqeysta dawladdu way ogtahay tallaabada xilliga ku habboon baa la qaadaa idinku naftarkiina kuwa cabiska ku jirtaan inta goor tahay dadkiina ku soo biira haddaad ka dhaga adeegtaan hadhowtiyaan la is eersan haddaad ka dhaga adeegtaan hadhowyaan la is eersan maanta cafis baa furan birri isla xisaabtan baa furnaan doona haddii uu cafiska ku soo galana nidaamka iyo siyaasadda cafiska uu raaci doonaa haddii isagoo ama dagaalamaya ama la shaqaynaya la qabtana nidaamka maxkamadaha ayuu wuxuu mari doonaa xeerarka ciqaabta ee uu mutaysan doono marka khiyaaraadkaasna isagaa kale leh dadka magaalada Boosaaso waxaan rabaa kaalinta ugu weyn inay qaataan jidadka la furo ammaanka laga shaqeeyo isdhexgalka la xoojiyo dadku ay nabadooda iyo degenaanshahooda ka shaqeeyaan walaalnimadooda ka shaqeeyaan waxaa xukuumaddu ku shaqayn doontaa magaalada Boosaaso inta laga xaqiijinayo amniga buuraha iyo magaalada isbeddelkeeda iyo horumarkeeda laga shaqeeyo haddii ilaahay aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh